jira hadal aan jeediyey oo sidii u ahaa laga duway oo la yidhi waxaa la isbarbar dhigay nimankii horgallada ahaa ee cadowga ahaa ee Hargeysa jooga magaca sheeganayay iyo raggii madaxda ahaa ee lagu matelayay Garowe markaana waa bayaamiye haddana waa ku celinayaa Puntland 1998kii reer SSC baa dhisay oo wax ka dhistay ragga Puntland joogay waa madax ku joogta kalsoonida iyo matalaadda reer SSC laba maamul baa lagu dhawaaqay maamulkeenni waa la dhisay xukuumadda iyo shacabka Puntland way isgarab taageen dhisidii maamulkeenna waxaynu u baahannahay in Puntland iyo SSC Khaatuma laga shaqeeyo laba maamul oo isgarab jooga inay noqdaan waxaan ku baaqayaa sidii qorshuhu u ahaa in isimada dhaqanku ay martigeliyaan oo ay ku baaqaan oo ay u yeedhaan isimada Puntland ay isugu yeedhaan inay isugu yimaadaan Laascaanood si looga tashado labadaa maamul say isula jaan qaadi lahaayeen